عشان إنه لبعض دقيقة قصة كوابو قدام الإمارات كليين وقت إنه إمارات كسرنا وحدينا مدعوية عشان لبعض دقيقة أبدو المرأة وما حد يجدد يعني كله بيسوي معنا كدبنا أدير وصوت دياري والجرام دير وعاود من رشة كريهة ويقول جودا عشان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لولا أن هدانا الله وحام حفظ إلهي سبحانه كريم إن أن أعوى يدورها من الكهر حتى أقول أنه جونا قربها إن أن نقول له نقول dhibaatada ummadda Soomaaliyeed haysatay wadankeena hadda jirtay marka waxaan go'aansanay in aan bil walba hal mar isu imaano oo ku kulano si aan uga faa'iideysano wadajirkeena iyo isku duubnideena in aan isla socodsiino wax kasta oo ku soo kordho wadanka wixii aan ka qaban karno at least inaan ka wada hadli karno aan wixii fikradeena ah aan gudbin karno iyo in anaga aan isu xigirino si aan isugu soo dhawaano oo aan u noqono dad isku xiran oo qaata waxaan nahay dad wanaagaas ummadda Soomaaliyeed ku midoobay oo ku walaaloobay intaas aan qorsheynay welcome soo dhawaada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ريال عن كهذا maanta waxaan doonayaa inaan ka hadlo qoraal aan sameeyey 2009 aan u sameeyey hay'ad la yiraahdo hay'adda samafalka ee manhaj waa hay'ad weyn degan wadankana ka shaqeysa cinwaanka wuxuu yahay khayraadka dalka Soomaaliya iyo sidii looga faa'iideysan lahaa way dheer tahay waa 47 page reference badan waxyaalo badan Soomaaliga qoran oo ku jira laakiin waxaan idin soo koobayaa muxuu ahaa toddoba way ka kooban tahay laakiin waxaan koobayaa waxyaalaha ay ka hadlayso oo horudhaca ku kooban uu ku kooban yahay waxyaalaha ugu muhiimsan wadanka wuxuu yahay Soomaaliya meesha ay ku taalo يعني meesha ku taalo geographically waa jid ka weyn badda oo maraakiibta ka timaada Yurub iyo Mareykan iyo oo socota Africa iyo Asia baddeena ay soo maraan meel ka maraakiib badan maritaan ma jirto taas waxay ka dhigtay strategic location waxa shan leeyahay ku qaybsaday taas ka mid ah yani strategic location weeye waa muhiim heerka badda Afrika ugu dheer oo 3,330 kilomitir ayay leedahay waxay ka mid tahay meelaha kalluunka ugu badan caalamka yani sanadkii waxaa laga heli karaa 300,000 oo tan laga heli karaa markii ugu badan ahay waxaan ka heli jiray 15,000 oo tan waxaan leenahay dhul beereed oo waraab iyo roob leenahay beeraha waraabka waxay u badan yihiin labada webi webiga Shabeelle yani مثلا Hiiraan Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose dhulka ugu beeraha ugu fiicnaa waxaa Shabeellaha Hoose waxaa ku xigay Shabeellaha Dhexe waxaa ku xigay Jubbada Hoose waxyaalaha ka baxa waa wada ogtihiin waxaa ka mid ah muus oo kale waxaynu ahayn Afrika wadanka koowaad oo muus dhoofiya sanadkii burburka ka horeeyay 1989 waxaynu dhoofinay
116 oo tan دين بوفني واحد بدنا نقعد استعمال waxaan boofinay bambeemada oo markaan dibadda ka keenay Florida nooc la yiraahdo red gobies oo dunida oo dhan laga jecel yahay waxaa maraakiibta kor la saari jiray bambeemada iyo qare maraakiibta muuska xoolaha idaha riyaha lo'da iyo geela wuxuu nahay marka la eego kabita marka la eego waddanada ugu badan baynu nahay especially Africa geela number one baynu nahay caalamka oo dhan ariga wuxuu nahay number 4 baynu nahay Africa lo'da wuxuu nahay 8 marka nicmadaas way ilaahay siiyey waxaa kaloo jira calaamado sheegaya in dhulkeena ay ku jiraan shidaal iyo macdan badan buuraha waqooyiga macdanaada ay ku jiraan oo dahabku ka mid yahay oo jimsku ka mid yihiin oo anigoo yaraan qaarkood arkeenay waa jiraan waxaa kaloo ilaahay nagu mataysay dad aada u firfircoon oo levelkooda intelligence uu sameeyo in fact marmarka qaarkood waxaan idhaahdaa ummadayda haddii muxuu ahaa maskaxdooda inta xoogaa ka yaraan lahayd malaha nabad baan heli lahayd qofkas wuxuu doonayaa inuu qofka kaleeto ka badbadiyo يعني example هذا نسيه كون سجال بقول اللي إحنا نسده أيام محمود تبني كوبي الطبان أو محمود تبني University of Arizona سنة الجوهري أيام حفلة بالغطي honor students حفلة وقت كوبي الطبان كيجي سجال أيام honor maraykanka waxa markaa waxa ka jiray midab kala sooc waliba dee koonfurta aad u weyn marka la sheego magac oo qof madow istaago waa arkaysaa dadka wajigoodii markii dambe waxay yidhahdaan dad madow oo nooc kale ay marka taasna waa inoo jirtaa marka وكهذا جغرافيا عملنا يعني هو كذا جوجا يديرتا وبيعشينا وراها وقوية هي كانت صودا يعني وحدتكم بالعابين ودي قحيد ما هين كل نيجاتيف موضع هين تذكي بيرها يقيني وقوية خبط أما بطلان أما سومالي لا تخبط بيري سميه heerar gaagaaban beero la waraabinayo kuwa roobka ah haddaad tagtid ama muxuu ahaa waqooyi galbeed ama Puntland wixii khudaar iyo muxuu ahaa fruits and vegetables waa laga helaa marka taasna muxuu ahaa وعملنا أو إنه صورة جلسة إنه وحياة بدن سمعينه عيد إلهي المسيح ولما كونياش وكان توفي عن كل أركان مربع محنجي سفير كصوت كوريا لابوري جي شلال هاوس ما أنت تقول لهم you are rich لكم ولا سيمن بيها جرافيتي أيضا عن بابل استعمال كشف ما يبيره وحصول يعني هو يابي
adigu markii dambe wuxuu ugu yiri aan haddii sheego waxaan annagu horumarkaan sameynay waxaan sameynay time management markii aan istiqaaq helay markaan u sheegay golaha wasiirada waa igu qosleen ciyaarada professorku waxaan loo joogay markasta ka hadlaa time management oo taraa sidaan idin sheegay howlaha nool ilaahay ku deeqsaday in nahay waddanka ugu weyn oo Middle East u dhoofiya howlaha weli waa dhoofinaa berbera iyo boosaaso howlo badan ayaa weli laga dhoofiyaa detail weeyaan uma gelayo detailka wax soo saarka miraha beeraha waxa ugu weyn waa sidaan idin sheegayay ugu weynaa muuska galleyda hadhuudhka ama sorghumka moordiga hadda maadaama muusku u baahan yahay in la package gareeyo oo la nadiifiyo oo la qallajiyo oo maraakiib gaara la saaro muuskii waa joogsaday baabuur baa lagu geeyaa waqooyiga iyo meelahaas laakiin lama dhoofiyo waxa keliya hadda la dhoofiyo waa laba shay taa nafteeda waxay ku tusaysaa dadka inay u fakereen labada shay oo aan xumaanayn markaa dhoofisa sisinta Soomaaliya waxaa loo dhoofiyaa imaaraadka ilaa Kanada gaadha saliideedu innagana waa soo gaadha ma aragteen saliidda sisinta waxaa kaloo la dhoofiyaa liin dhanaanta oo la qallajiyo waxaa loo dhigaa plastic bags wadadheer waaweyn baa loo dhigaa waa la qallajiyaa waxaa loo dhoofiyaa dhulka carabta imaaraadka iyo sacuudiga iyo waxaas waxay u isticmaalaan bariiska ay karinayaan ayaa ku ridaysaa carafkii bariiska ayuu badiyaa wax beera oo inu dhoofino hadda kalluunkana waa la dhoofiyaa yani sharikada Soomaaliyeed berbera iyo boosaaso iyo meelo kale ka dhoofiya waa jiraan wax badan oo layna ka xadaana waa jiraan kalluunkeena يعني potential كانوا وصدق بقولوا كل ما سيد عندي شيء إنه إلى صدق شيء تمام كل طن صوصة مركا بدني وخيرات دهن شدات المعدن بعد إلى إنك بعد استهل سمية وبعدين يا إن شدات ممكن يجروا معدنتنا مثلا بدن تاعي معدنت الذهب ايرون كوبر هو بدو في الجيش مجيهم بدو في الجيش يورانيوم وحاصل بما يسمى لكن ولي كمين فائديسا ذكرته ويقول لنا هاي dad aad ganacsiga ugu fiican hadda yani marka Afrika eegtid waddanka ugu telecommunication fiican isagoo aan dowlad lahayn waa Soomaaliya xawaalada lacagta maanta dahabshiil ka dirtid berri waa la helayaa meel kasta buulo kasta oo Soomaaliya meela aan magaalo ahayn berigaan anigu yaraa oo sanaaga ayaa magaalooyin noqday waa diraa next day waxa leeyahay waa hebel telefoonka waa haystaan telecommunication iyo xawaaladihii meel si uga shaqeeyaan dhulkeena bilaacadaha inuu dhoofino هذا وحكمنا xoolaha nool dhuxusha oo dhulkeennii ama nabaad guuraysa kalluunka hargaha
degeen miraha sisinta beeyada maydiga iyo habkaha iyo aqoos kalluunka meelaha qaarna waxaa la bilaabay in hilib diyaarada lagu qaado xoolahana duurjoogta ahaa naftooda waa la dhoofiyaa waa la dhalaa markaas intaas baa hadda waxyaalaha ay dibadda u doofino waxyaalo badan ay dibadda ka keenin waa intii cunooyinka ugu badan bariiska iyo sonkorta iyo wixii marka waddanka ilaahay nicmadaas uu ku manaystay iyo locationka geographiga ah oo aada muhiimka u ah wuxuu u baahan yahay inaynu soo celino nabadgelyo iyo inaynu sectorska ama xoolaha ahaadeen ama beeraha ahaadeen ama jidadkii muxuu ahaa infrastructurekii waraabka waxyaalahaas oo dhan waxay u baahan yihiin in loo sameeyo investment project proposals la qoro donors diyaar bay u yihiin inay ina support gareeyaan nabad aynu soo celino dhulkeennii dib u dhisano waxaynu nahay waddan nicmaduusu badan tahay dadkiisuna uusan badnayn marka per capita wealth degdeg bay kor ugu kici kartaa haddii aynu waddankeena u shaqeyno nabadna ka dhalino mararka qaarkood aayado qur-aana markaan akriyo waxay hor yimaada anigu waddanka waxay ugu horreysay 70-kii cadan baan ku koray waqooyiga kuleelaha iman jiray maraykan anigu 20 jiraan tegay markaa wax soo bartaan soo noqday 70-kii aan soo noqday aan afgooyo degay afgooyo 20 sano deganaa kuliyadda beeraha iyo wasaaradda beeraha iyo ka shaqeynaya laakiin amar ma degin marka aan akriyo aayadda qur-aanka waxay hor timaada soomaaliya siday ahayd iyo siday waxay ku tuuraa suurat naxl bay ku taala ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إلهي وحو example أبهي ودن نبت يليو نبت يلي هيستا مطمئنة دقناشو هيستا يأتيها رزقها رغدا من كل ما رزق غير مال قصة قويمة فكفرت بأنعم الله نعمة إلهي أي كفر ذي فأذاقها الله إلهي والقدسية لباس الجوع والخوف ما كان هو تقديمته يقاجدا وحي خبتين ذراده مركا هدي دون إنه قرية مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وإنه من الجليل ودن كيني كدلنا وإنه أها أمد إنه هاي اسكو دينا اسكو مذهبا اسكو أفعى سو ما قال حتى قبيلة وقت إنه كبر رواجي مركان لبعض تنجرك أها وعدم جوبي سكولر شيء مهلا ما تعدي 4.5 سو ما قال يعني إنه قلنا ليش إنه جوبي جرو إنه هربك كوجاني إنه قلنا هي لوبا هي marka dadka inaa taa ku dhiirigelisaan document kan cidii u baahan yihiin inay loo soo diri karaan waa mahadsantahay